kulanti wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan waxaan rabaa inaan idin la wadaago caawa ama idinka dabageeyo xogta iyo wararkii ugu dambeysay taliyihii hore ee hay'adda nabad Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo caawa go'doon culus ku wajahaya qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka El Hareeri. xogaas ayaan rabaa inaan kula wadaago haddii ay tahay markii ugu halkaan soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe dhaha channelka like na saartid si aan u helo saaxiibadan adigoo kaleeta waxaan sidoo kale idinka raali gelinayaa in muddo bil halkaan aan ka maqnaa isla markaana aan idin kula wadaagin muuqaalo oo aan ku baahin jiray halkaan markii horeba taliyihii hore ee hay'adda nabad Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo dhawaan laga qaaday xilka agaasimihii hay'adda nabadda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe ayaa caawa lagu soo waramayaa in qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan El Hareeri halkaas oo ay dhawaan al-shabaab dagaal culus ku soo qaadeen isla markaana ay kula wareegeen ee caawa uu ku sugan yahay halkaas isla markaana uu go'doon culus ku wajahayo go'doonkan culus oo caawa wajahayo Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe taliyihii hore ee nabadda Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in al-shabaab maanta galinkii dambe ay go'doomiyeen qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan El Hareeri iyo deegaanada hoos yimaada halkaasna uu ku sugnaa taliye Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe sidoo kale Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu halkaas u joogay in beesha xawaadle uu ku qanciyo inay isaga soo baxaan furimaha hore dagaalka bacdama dowladda federaalka Soomaaliya ay ku fiirsatay dagaalka isla markaana ay indhaha kaga fiirsanaysay maalmihii la soo dhaafay iyo bilooyinkii u dambeeyayba sidoo kale Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe wararka halkaas ka imaanaya waxay sheegayaan in halkaas uu u joogay dardargelinta dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab maadaama halkaas warar isdiidan ay ka soo baxayaan laakiin xogta rasmiga waxay sheegaysaa in Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe uu halkaas u tagay in beesha xawaadle uu u sheego in furmaha hore dagaalka guud ahaanba ay isaga soo baxaan isla markaana ay iska dhaafaanba dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab maadaama beesha xawaadle ay ahayd beesha kaliya ee degta gobolka Hiiraan ee dagaalka adag kula jirtay isla markaana halkaas ay ugu dhinteen hayeeyo iyo wiilal badan oo beesha u dhashay beesha xawaadle ayaa la rumaysan yahay in dagaalka ugu cuslaa abid ee la gashay kooxda al-shabaab isla markaana ay al-shabaab ka nusqaamisay qaybo ka tirsan ama ay ka saartay qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexeba iyadoo ay xusid mudan tahay in maalmo xiriir al-shabaab ay ku soo laalaabanayeen isla markaana dagaal ay ku soo qaadayeen si ay ula wareegaan Abuurey oo ka tirsan gobolka Hiiraan balse ciidamada dadka deegaanka ee u dhashay beesha xawaadle ay halkaas jilbaha ku aastay waxaana halkaas al-shabaab jab culus lagu gaarsiiyay isla markaana al-shabaab ay u suurgali weysay inay la wareegaan guud ahaanba deegaanada hoos yimaada Abuurey ee gobolka Hiiraan sidoo kale caawa go'doonkan uu wajahayo Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe ayaa la soo warinayaa in shirqool ay ahayd in Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe caawa halkaas uu go'doon ku gala bacdama maalmihii la soo dhaafay halkaas uu ku sugnaa kadib markii xilka laga qaaday Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe xilka qaadista lagu sameeyay Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay daba socotay tuhno soo kala dhaxgalay asaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aansaday in uu xilka guud ahaanba ka qaado taliye Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe isla markaana uu ku celiyo taliyihii hore ee hay'adda nabadda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad balse Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe caawa go'doonkan halkaas uu ku wajahayo sidoo kale waxaa la soo warinayaa in halkaas caawa ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo culus oo iska soo horjeedo kuwaas oo isdhaafsanayaan ciidamada dadka deegaanka ee u dhashay beesha xawaadle iyo kooxda al-shabaab oo halkaas iyaga sida la rumaysan yahay dagaal culus uu ku dhex marayay maalmihii iyo sanadihii la soo dhaafayba sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in halka uu ku sugan yahay Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe ee caawa go'doomiyeen dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab oo saacadihii la soo dhaafay isku soo urursanayay qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanada hoos yimaada El Hareeri bacdama al-shabaab maalmihii la soo dhaafay ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka El Hareeri ee gobolka Hiiraan hadda halkaas waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo culus oo isdhaafsanayaan labada dhinac sidoo kale waxaa la soo warinayaa in Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe uu hadda halkaas ku sugan yahay isla markaana uu wajahayo waxaana deegaanada El Hareeri u dhow al-shabaab ku sugan yihiin halkaas waxaana deegaanada El Hareeri u dhow caawa al-shabaab go'doomiyeen halkaas ku sugan ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo fariisimo iiga ku leh halkaas mana jiraan dhaqaaqyo halkaas ay caawa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan misana gurmud ay ugu fidanayaan taliyihii hore ee nabadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe wixii warar ka soo kordha go'doonka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe caawa halkaas ku wajahayo idinka ayaa ugu horeyn doona waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii ugu soo booqatay subscribe dhaha channelka like na saarsiiyaan oo saaxiibadan adigoo kaleeta aad iyo aad ay mahadsan tahay